الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نقول جوسينتا وكعين دوميها قدام مقعينك وابنها قدقة اللي بان سكري ساحبك ان كوليغا نهي ان وسارد علمها قدها دوبك قلب دوكسي وديه دمان توضا ارقد انتوضا كالبهد الصحافة ان علمنا امني بسوء افر الله الساعة تاقا وحان دمانتي بسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان سلام كذب waxaan aad ugu faraxsanahay markii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo xuleysay guddiga dib-u-heshiisiinta inay soo xuleen rag khubaro iyo gabdho khubaro ah oo aqoon maadi iyo diini leh marka aad ugu faraxsanahay mar haddii intaas idin joogaan waxaan idin sheegnaa iska yaraanaysa sababtoo ah ragga iyo gabdhaha ku jiro anu aad ugu kalsoon aqoon durugsan oo leeyihiin haddii noqon lahayd diinta iyo haddii noqon lahayd maadigo rag jagooyin badan gabdhaha ku jira oo xilal soo qabtay dowladda hore iyo dowladaha dambeba sidoo kale waxaan faraxsanahay in duubka dhaqanka ayagana aqoon dheer u leeyihiin dowladnimada iyo xagga diinta marka wax badan ii sheeg mahay laakiin waxaan maadaama uu sheeg professor yaxya waxaan rabaa xoogaa yar inaan idiin sheego oo ah meesha ay marayso isdhexgalka ciidamada la qarameeyey iyo meesha aan tiigsanayno future-ka iyo hadafku muxuu yahay marka hore waxaan mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo halkan uu joogay muddo 2 bil ka dhawaan sidoo kale madaxa xukuumadda ee galmudug iyo madaxweyne xaafi ayagana waa mahadcelinaa ayaga la-aantooda la suurtoobi lahayn intaas oo dhan odayga soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa asagana intaas fursada siinaya ra-iisul wasaaraha ma suurtoobi lahayn asagana waa mahadcelinaa intaas kadib markaa halkaan nimid waxaad ogsoontihiin dadka intooda badan ma xaqiiqsanan mana rumaysnayn inaan maanta kale aan soo gaarin mana xaqiiqsanin waxaan ilaah ka barayaa mar dhow in dowlad loo dhan yahay iga gacmihiin aan ku dhisteen in galmudug loo dhiso hadduu ilaahi rabbi subxaana watacaala markaa halkaan nimid ciidamadii halkaan ugu nimid ahlusunna oo xaqiiqda nabadgelyadii amnigan aad ugu shaqeeyey wuxuu ra-iisul wasaaraha soo bandhigay inay la falgalaan ama ay ka mid noqdaan ciidamada federaalka qaybahooda kala gedisan military haddii ay noqon lahayd police nabad sugidda iyo asluubta muddo yar kadib waa la mahadiis way aqbaleen liisasaa loo kala sameeyey waxaa lagu kala daray 4taas ciidamo qaybahooda kala duwan lagu wada daray waa lagu guulaystay isla markii biometric registration aan halkan ugu yeernay iyo gobollada kale oo ay ka tirsantahay galmudugaa la wada geeyey biometric registration laga soo qaaday ciidamada qaybahooda kala duwan bishii ugu horreysay intayna dhammaan 5 bishii July aan nimid halkan bishii kale July intayna sodon kala gaarin lacagtooda waa la wada siiyey inta la qarmiyey muddo yar kadib ayagana sidoo kale gabdhooyin soo dalbadeen ahlusunna wal jamaaca ama maamulka halkan joogay ayagana wixii markaas suurtagal ahay waa la daaqsiiyey intaas kadib ma ku ekeen kadib waxaan isku daynay in tababar la siiyey ciidamada maadaama ay tababar baahan yihiin la qarameeyey qaar saraakiin noqdeen dhowr heer oo kala saarnay wixii booliis ahay oo saraakiil ah magaalada muqdisho u dirna booliisku waa ogtihiin waa saaxiib koowaad ee bulshada waxa laga rabana in ay badanaa shaqeeyaan magaalooyinka ka shaqeeyaan waa booliis marka booliiska saraakiisha booliiska waxaan u dirnay magaalada muqdisho si ay soo qaataan tababarka ahaan lahayd ama aqoon kororsi tababarku u socdaa almahdiis waa 16 ka mid ah saraakiisha shalay waxaa loo diray Djibouti si tababar dheeraad 3 bil ugu soo qaata intaas markaan marayna ciidamada tababar loo furay uniform loo keenay biometric registration la siiyey mushaaradkooda bishii labaad way qaateen sidoo kale dowladda federaalku waxay xaqiijisay in intaan kelin loo kaaftoomi karin in hadafka kaliya in dadkan la isku daro oo shirka kaliya in ahaan ay ahaat sidii loo reyn lahay deegaanada galmudug intay cadawga gacanta ku jira meel duleedka gurceel ah xero la yiraahdo har qabow aniga guddiga dhowr mar tageen marna anaga la tageen waxaa lagu xareeyay ciidamo military ah oo loogu talagalay dib u xoreynta deegaanada gacanta cadawga qabaariishta ay ku jirto ciidamada tababar u socdo tababarka qaybtooda way dhameysteen haddii ilaahay yiraahdo ciidamada kan waxay ku xareysiin qaybta kuulaatanaad magaalada Dhuusmareeb
hadduu ilaahi yidhahdo ayagana mar dhow hadduu tababarka u dhammaado iyadoo lagu xoojinaya ciidamada 21aad mar dhow insha allah dib u xirayntaa la geli doona intaana doorashada la gelin kahor waxaan samayn doonaa in deegaanadaas dib u xirayntooda dib loo bilaabo ilaahi subxaana wa tacaala